maanta oo sabti ah waxaa lagu ballansanaa in gebi ahaanba la sameeyo ayda ku dhaqan magaaladani Boorama iyadoo oo subaxnimadii hore ee saaka duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane iyo qaar ka mid ah xildhibaanada taabacsan isagu ay u dhaqaaqeen inay sameeyaan ayda ku dhaqan magaaladani halka ay xildhibaanada qaarkood ay cambaareeyeen tallaabada uu qaaday duqa degmada Boorama shacabka ku dhaqan goobta lagu gubayay ayda la sameeyay oo iyagu ka hadlay qorshe la'aanta lagu sameeyay ayda ku dhaqan magaalada Boorama halka aysan goobtaas goobjoog ba ahayn shirkadda nadaafadda ee magaaladani Boorama ee magaceega loo soo gaabiyo Horseed duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane oo isagu ka hadlayay goobtii loogu talagalay in lagu gubo ayda la sameeyay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inuu ku guuleystay gabi ahaanba qorshihii uu ugu talagalay inuu ku sameeyo aydaas horeyna ugu wargelinay in hawlgalkii sumeynta aydu bilaabmay maanta ay bishu tahay 30 bishii koowaad 2016 waxaan dadweynaha iyaga in badan ka cabanayay dhibaatada ay aydu leedahay caafimaad darro darteed aan ka codsanaynaa inay isla kaay garab taagaan hawlgalka oo naga caawiyaan wixii meelaha xabad fakatayna ay soo sheegaan waxaan ka codsanaynaa waalidiinta inay awlaadooda guriyaha ku ilaashadaan inta hawshaasi socoto weegan run ahaantii waa hawl culus baaxadeeda leh haddayna dadweynuhu nagu garabsiina siday ku qabsoontaa way adkaanaysaa dhanka kale xildhibaanada aqalka golaha deegaanka qaar ka mid ah oo iyagu cambaareeyay arrintaas ayaa waxay si adag farta ugu fiiqeen inuu ku guuldaraystay Maxamed Xuseen Meedhane qorshahii loogu talagalay in lagu sameeyo ayda isla waqti xaadirkaasina ku tilmaamay qorshe lagu guuldaraystay halka ay dhinaca kale eedayn u soo jeediyeen shirkadda nadaafadda ee Horseed ee magaaladani Boorama golaha ugu talagalay uma dhicin sida arkaysaan sawirka ka muuqdana waxa weeyaan أيدي سنتي لو قلت لك علي واحد نقطة مد أنت تشابه لحين مد أنا لو قلت لك قلين يقابل واحد لسنة على أنت تشابين واحد عادي إن أيدي ما تاي ميلو البدات سينين يقص ما يسمى مركز سكدو مرتو البدات سينين وحوي ينام كلا واحد وعن وعكو كليسي دوميه دق بده ويسقو نقضي كسمانية كقاضية كقط كجينية isku koobay hawshii taasina waxa noqotay hawl isay ka balaaran waxaan leenahay isagii intii ag joogtay ee waxa kula taasina way fashilan yihiin runtii hay'adaha dawladda ee gobolku indho dheer ha u yeeshaan oo ha soo farageliyaan qaabka ay u socoto waxa weeye runtii iyo halista ay leeyihiin ayda waxa weeye maanta hawsheeda aan bilownay degmadu ay runtii hawsha ay wado waa culays ka ballaaran degmada laakiin waxay ahayd inay cid walba heegan ahaato ilaa hadda waxa weeye runtii iyaan la moodin sida ay tahay waxaan leenahay si aad ah loo soo farageliyo hawsha laakiin shirkadda Horseed maaha runtii inay magaalada iyada lafteedu maalmahan dambe hadal isariiriyato oo meelaha waxa weeye gaarigana maxay baan siin ku daynaan kulahay baan siinay igu lahaa baan siinayo maxayduun la islaayo suuqa laga marmo maahine iyaduna runtii culayska yaalla ee meel walba yaalla haddayna sidii aan ugu wareejinay ayna u hayn kareynin ha soo celiso oo maamulkii ha ku soo celiso degmadii iyo cidii runtii ku wareejisay maamulka kolka horeba waxa weeye hayay hawsha waxa weeye roobaada ay gidaafada waxa weeye maalin walba anagu waxaan u soo dirnaa cagaf baan u soo dirnaa oo la sameeyay oo la qaadin godkii aan la geynin waxaanu leenahay runtii waxay tani ahayd in la sameeyo wacyi badan ballaaran oo dadka la wacyi geliyo qaabka looga qabanayo qaabka loo sameeyo iyo saacadda ay dhacayso in dadka loo sheegaa bay ahayd annaguna waxaan gurmadka u nahay imika bulshada Boorama ayaanu gurmad u nahay sidii aydaasi la sameeyay ay uga dheeraan lahaayeen mataqaanaa uga gaashaman lahaayeen iskaga fogeyn lahaayeen wuxuu ka yimid shakhsigu wax maamulaya hadduu isku koobo maamulka oo is yiraahdo من بلو إلا دمات هذا شيء أوقاتي ده إحنا مثلا شخص قاسينونا شخص كلسوني قبضة شخص كلسوني قبنا معها شخص كباسة لنا معها شخصي هلكو جوجو أقل منا معها هدي أديدوكو أركيسين واحد جودها كسعدة
waxaan banaanka ka socda dusha ka socda waa waxay dawladdu hoos maamulaysa maamulkiisa hoos yimaadaan sidee loo maamulaya hadeerto wax daaya rooba iyana dul taagan alxamdulillaah rabbil caalamiin haynoodo waxa soo quluniyo uskaga iyo sunta ayda markuu qaadaan ku geenaya dadka inaga hooseeyo geenaya ila la xisaabtamo oo miiska la soo fadhiisiyo ay ahayd halka dadka ku dhaqan duleedka magaalada Boorama ay si adag u cambaareeyeen tallaabada uu ku dhaqaaqay duqa degmada Boorama iyo xildhibaanada sida gaarka ah u taabacsan ururiyo ya oo mashaakil weeyaan meesha caruurtii baa dul tagayso waa aday doonaan way faqayaan aday doonaan way eegayaan dib baa kaga iman doonta ya wayna taataban suntaas maartay ciyaalku gacanta maartay wax ku cunayaan dhibaatay u keenaysa kamana joogsan karayaan wax ilaalinayo askar oo maartay kala badbaadinayso ambase maartay hagaajinaysan ma jirto kawdhe marka waxa weeyaan kii halkan la soo fariisiyay la dhigi daafada ha ilaaliyo muxuu hayaa oo lacagna ku qaato wuxuu ku hayo oo maartay uu lacagta ku qaadanayo maxay tahay iyo ilaalin karaya si maartay qof ka qaabilaya ma jirta askar adag oo maartay la keeno oo maartay daafada lagu shubo meel aan meeshiisa ahayn lagu arko in la khasirayo محمد أحمد إبراهيم الكعسة ويسقو برتمها مقالة Boorama كلها اللي يقار كمدا ورفيديانا دا أيا وحا أوسي أدق فرطة وقفيقين محمد حسين ميراني ودوقا دقمدا Boorama مركيو أركين شرشرايد حلدباندو أكوها يامد كمدا هوتيلا دا مقالة Boorama أوسي قرصودي وغراعي بابور يسقو أوتيل ماما ينا وحا هذا الذي سي كمدا وحوي والله صحافة وادي كانت ما كنا في كعب حسن يا هاشلوا لهين كيس يا وقت بكرة اللي كشوا بيصيروا تكنها tani ayaa waxay noqonaysaa to ay isku maandhaafsan yihiin duqa degmada Boorama iyo xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee Boorama balse lama oga halka ay ku dambeyn doonto arintan walow indhahaagu ay qabanayaan markaad marayso dawyada xudurta oo ah magaalada Boorama ay kamid ah kuwii saaka la sumeeyay halka qaarkoodna ay yihiin kuwa ilaa imika aan waxba laga qaban balse Maxamed Xuseen Meedhane oo ah duqa degmada Boorama uu sheeganayo guul inuu ka gaaray arintaasi وجامع ضد سبيس channel Boorama